munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay musharaxnimada iyo waxqabadka xukuumadda uu hogaamiyo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta ka dhacday magaalada Berbera gaar ahaan jaamacadda Culunta Badda waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil maamulka laamaha kala duwan ee dawladda barasaabada gobolka Ceerigaabo iyo Berbera agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta mareeyaha haamaha shidaalka maareeya ku-xigeenka dekedda Berbera iyo maayarka degmada Berbera iyo welibana taageerayaal aad u tiro badan oo luxayay calanka xisbiga kulmiye waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Saaxil Halac Dhagoole iyo xoghayaha xisbiga kulmiye Cali Maxamed Muuse iyo welibana xubno kale waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo halkan isugu yimi waxaynu taageeraynaa waxqabadka dawladda innagu waxaynu nahay xisbi muxaafid si wanaagsan baynu u khudbadaynaynaa cidna taaban mayno muraayadii dalkaynu nahay waxaan leeyahay cabdiraxmaan halkan waxaa laga doortay 2005 tobankii xildhibaane ka soo baxay gobolka Saaxil ayuu ahaa wuxuu fadhiyey ra'iisul baarlamaanka ahaa ilaa muddo gaaraysa 10 sannadood runtii ma arag isagoo dadka Berbera u socda oo Berbera yimi oo ka hadlaya amba caafimaad ama biyo ama waxbarasho waxaan leeyahay anaafta ururka himilaayo ku hadlaya annaha weynaha reer Saaxilba waxaan leeyahay waa dawladda yaa la cambaaray dawladdeena aad loogu qabatay aad iyo aad bay u tartay waxaan leeyahay dawladda xaxagashada laga daadiyo midna kale waxaan raacinayaa waxaan leeyahay xagga dawladda waxaan leeyahay waa in la reeyaalaha riyada laga daadiyo qofka badan ku habsanaysa qoraysa waanu baqanaynaa haddaan wax nidhaahdo waxaan leenahay xukuumadda ka tayso dadka shicibka waxaa kale oo halkaasi ka hadlay maamulka degmada iyo gobolka mareeyaha haamaha shidaalka mareeya ku-xigeenka dekedda Berbera waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidan madaxweynaha jamhuuriyaddu siduu dhallinyarta ugu yahay diyaar koobkaasina wuu inoo yaallaa ballankeena gobolka Saaxilna muxuu noqonayaa waxaan leeyahay hadduunbaa kollay gaboobi doontaan haddii alla ka dhigo raadkii wanaagsanaabaa helaysaan dib marka uu baqayo waynu ognahay inaan doorashadii madaxweynahan iyo xukuumaddan ay waqti ka hareen waqti badan inuu ka hadho waynu gareenaa 2000 aanaynu gaadhinaya 15 haddana iyadoo aan la gaadhin ama 2 sannadoodba ay kaadhsan yihiin bay lahaayeen doorasho la qaban maayo doorashaduu doonayaa Silaayo ma doonayo inuu kordhiso doorashada laakiin waxa kordhisnimada doonaya ama doonaya inaanu Silaayo la tartamin ragga musharaxiinta ee leh doorashada kordhinaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaynu ku taageerayna waxqabadkiisa in badan baa masaajida la hadlayay badan baa la hadlay waxaan jeclayaa soo koobo wax laba kalmood ku soo koobo marka hore waxaan idin sheegayaa waxaynu taageeraynaa ku taageeraynaa madaxweynaha waa waxqabad weyn waxqabadka muuqda laba qofna maanahay si kastaba ha ahaatee munaasabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli maalintii shalay ahayd uu ku biray xisbiga mucaaradka ah ee waddani afhayeenkii xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil Cali Axmed Kooshin Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.